waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saddex hool mid laba baqarayin iyo mid meeting lagu qabanayo iyo laba xafiis cusbitaalka in tiimka aan 6 bilood joognay waxa lagu soo kordhiyay qaybtan kaliyaha oo imka shaqeynayso dadka aad lagu shaqeynayo shaqaduna bilaash tahay iyo bilicdiisa oo hagaajinay waxaan kala soo kordhinay qalabkii shaybaar ku dhawan bedelay oo qalab cusub baan keenay intii xilkaysay qalabkii shaybaar ku dhawan bedelay taasina aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa xukuumadda hogaamiye ka tahay madaxweyne waxa kale oo ay jirtaa inaanu la dhisayo imka 5 xanaano oo cusub iyo gobolkayga ka jireen 4 xanaano hore 5 imka gacanta lagu hayo hoolishaas waxa kale loo isticmaalayaa tababarka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka kale marka madaxweyne waa soo kordhin aad tayo u leh halkan waxayna garabkeen taala imka ah qaybta kaliya oo jaahin inaan soo yarmaro hore uma jirin wadanka wixii hargeysa ka sokeeya ma jirin gobolku runtii dadaal ku sameeyay waa ka marqaad furay burcana dawaada soo hadalkeedii wad maqlaysaa iyo kormeerka ku dhex marayso si soo dhaweynayaan waxaan ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala madaxweyne inuu ilaahay gacantaada mid barakaysan nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu gaarsiiyo inuu ku faraxsan oo arkayna qolka loo diyaar gareeyay bukaankeena hadii la yiraahdo hawshar barnaamijka talaabada yarada ugu horeysay baan qaaday qaar waa weyn baa inaga suuyaa oo dalku u baahan yahay oo inagana dadaal nagu ah 20 qol way nagu yariji laakiin tabartana tiri waxaan rajaynaynaa inaan dhowr boqol oo qol gaarsiino oo dadka baahida kordhino kaliya way nagu yariji inuu badinaaba inuu baahanahay tamarteena kolba aan loodo kolka waa bilow